waxaa yimid wafdi culus oo ka yimid jamhuuriyadda Djibouti runtii wafdi heer qaran ah oo runtii isku jira dhinac walba haddaan nahay jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wafdiga madaxweynaha la doortay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo runtii maanta si wanaagsan saad arkaysaan buu soo dhaweeyay waxaana runtii wafdigu ahaa hambalyo soo dhaweyn ah oo ka soo horeysay tii calaamasaarka ah taasoo ina tusayso jaarnimada walaalnimada labada dal xiriirka sokeeyaha ee ka jira jamhuuriyadda Djibouti jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii mid aan la iloobi karin runtii aan marnaba ahayn sad ka waraysanba Djibouti waxa naga dhaxaya jaarnimo walaalnimo afkii waxyaabo badan waa dad dega labada dalba runtii hadday noqoto Soomaaliland iyo hadday noqoto jamhuuriyadda Djibouti waxaan runtii jecel waftiga maanta si fiican maanta iyaga booqasho gaar ah noogu yimid oo dayuurad runtii gaar ah soo qaatay oo private waxaan leenahay ku soo dhawaada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan 10 maalmood dabadeed aanu nimid oo aan garanay in aanu tagno oo soo hambaliyano aanu ducayno waa intaan isku jirro xuduudka Soomaaliland iyo Djibouti waa 16 kilomitir waa dalka ugu dhow waana run ahaan dhaqan ahaan diin ahaan dhiig ahaan labada dal isugu dhow in markaa dadka kale aan ka soo horeyno aan ka soo hormarro calaamasaarkii bisha dabadeed dhacay waa socdaalkayagana ayaa tilmaamaya intan isku jirro laba dal isku jiraan madaxweynaha cusub ummadda reer Soomaaliland ay dooratay waan hambalyeennay waan la soconay waana noo ducaynay waxaanu ilaahay uga baryeennaa in xilkaa culus loo igmaday ilaahay ku garab galo noqdana kii basbas iyo barwaaqo iyo horumar Somaliland gaarsiinayay waqtigan maanta aanu ku nimid waa mid ka soo hormaray boqosooyinka caadigeeda la isugu yimaado waa mid walaalnimo weeye waa mid darisnimo ka kale ee calaamasaarkana dabcan waa Djibouti waa ay iman doontaayoo dee wafdi rasmi ah oo official ayaa iman doona madaxweynaha waanu hambalyeynay ummadda Soomaalilandna waanu hambalyeynaynaa waxaan ugu hambalyeynaynaa sida quruxda badan ku dayashadu ay ku jirto ay tahay in lagaga daydo tii cidnaanay caawin doorashada heerka sare ah ee casriga hore oo la isku raacay in ay tahay tii ugu horreysayba qaaraddan Afrika ka dhacda ee ay suuro geliyeen inta dadka dheertiin baan leenahay idinkoo bil aqoonsiga cidna aan idin gargaarin gaadheen aqoonsiguna waa ka ummaddu ay aqoonsatay idinka ay aqoonsaday hambalyaan idin leenahay